السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا توسي تيرتين ما أنت موضوعا وحو كسابسن يهي مارينتا يفهنكا هانتيدا أم بالعكتا تدكينو انت بدن سؤالها نسويديان سيدا تاجر لغو نقضا وقتي كوبان هانتي مكو سمين كرا دادال يا أقون هانتي ما سميسا مارينتا لعقتو ما ميد وباهان أقون با يعني سؤالها هو سؤال انت بدن سي دبيعية او نولشينا مالين لها آكو سو نقضا بالمركا waxaan doonaynaa fahan asaasi ah oo qofka aynu ka siino mafhuumka lacagta iyo hantida marka waxaan doonaynaa su'aashan caanka ah ma jeceshahay lacagta bal inaynu isweydiino qofku marka su'aasha markuu isweydiyo laba ciladood baa dadka haysta cilada koobaad waa cilada la yiraahdo cabsida amba baqashada qofku lacagta uu jecel yahay laakiin wuxuu ka baqanayaa inuu shaqadiisan waayo hadduu activity israada sameeyo yani lacagta iyo si lacagta aad u sameeyso iyo qof dhiiran maaha qofkani mashaakilka haysta waxa weeye cabsi ama baqasho wuxuu kaloo ka warwarayaa deganaansho la'aan dhinaca dhaqaalaha ah wuxuu qoranayaa in haddaan shaqadan ka tago oo aan bisili sameeyo bilu inaad yar socon وايا بيلو كلا كعا يعني جبال بعدين عاك هيستا تصدقنا وحوي خطرت كوميدي هنا أوني يعني ريسك تيكر أو ريسكي يعني أوفدو يهاي نقاط معها مركورتي إلا دوات هاسو وفير أم وعبسي إلا ذا كلا وحوي ذات كالعكت تشعل هيستا وحوي ضمعة وقف يعني العكتي هي لكن ضمعة بهاي أو كهذه تشير هيستا وقيبت لنا عن أو هيستا يعني معمول حمى دي وحكو سبب العكت إنه تشعل يوسيد سايد كأو تشعل هاي كدي منهم حلاقة يا بينا كائن تشعل كالعكت هو قبائنا كائن inuu lacagtiisa horumariyo marka cilada koobaad iyo taa labaad ba hadii jeer dadka ka haysta inay lacag iyo hanti sameeyaan arrimaha hadaba aynu doonayno inaynu bal yani si basiga u fahanno ee ku saabsan sidee loo sameeyaa hanti waqti kooban amba sidee hanti loo sameystaa amba ay tahay qofka yani aan xataa aqoonta badan u lahayn inuu ka fahmo yani hantida iyo lacagta iyo maareynteeda waxa la yiraahdo waxa weeye passive income amba dakhliga dadban waa maxay yani passive income amba dakhliga dadban waxa weeye sida caadiga ay naqaana qofku waxa weeye inuu shaqeeyo kadibna lacag la siiyo marka sida macruufka waxa weeye yani time ku wuxuu leeyahay lacag amba waqtiga shaqada galiso waxaad ku helaysaa lacag qof wata mushahar la siiyo shaqeynaya laakiin mafhuumkan doonayna inaynu fahanno kaas oo wada macruuf oo yani qofka haduu shaqeeyo lacag baa la siiyo waa macruuf laakiin arrinta doonayna isla fahanno ay tahay inaad passive dakhliga dadban waxa weeye inay lacagtii adiga ku shaqeyso oo adigu aan meeshii joogin oo shaqaale ahayn lacagtaadi kaligeed ay ku shaqeysay lacag kale ku dhasho marka horti fikirka koobaad doonayna maskaxda aad ku raasugaysaa ama aad fahantaa waxa weeye inaad isku daydo inaad yeelato dakhliga dadban yani yaanay muhiimadaadu amba aragtidaadu amba يعني هميغاغو يان ku koobnaanun shaqaale iyo lacag waqti iyo lacag laakiin inaad ku hamido amba aad sameeyso waxa la yiraahdo yani dakhliga dadban amba passive income taasoo ay tahay lacagtaadu inay ku shaqeyso adigoo maqan marka qodobkaas waa qodobkaad iska ilaalinayso kana waxaan doonayaa fahantaan ee ah dakhliga dadban hadaba dakhliga dadban sidoo yani qofka uu horumariyo amba hanti uu sameeyaa baan eegina haddaba dakhliga dadban waxa uu aasaasa 4 qodob dadku sida caadiga ay naqaan waxa weeye waxa yaqaanaan income-ka amba ii sheeg waxa weeye kharashaadkaaga waxaan jeedaa income-ka oo ah mushaharkii amba dakhligii ku soo galay iyo kharashaadkaad ku bixiso waxa weeye labada mabda caadiga isla naqaano inta badan markay lacagta ka sheekeynayaan amba yani ii sheeg hantida ay ka sheekeynayaan ama qofku mushaharkiisa soo qaato waxa koobaad ku fikira waxa weeye kharashaadkii oo ku bixin la waxa weeye kiradii iyo biilkii iyo transportationkii ama wixii isgaarsiintii iyo cashuurihii dhammaan arrimahani waa arrimuhu ku bixiyo dakhliga soo gala dakhligaas laba dhinac buu ku soo gali karaa waa lacagta mushaharka ku qaatay amba waxa weeye shakira amba si kale ku soo galay laakiin labada arrimood doonayna inaynu fahanno ma aha caadiga taqaanaan waa labada arrimood xagga sare ku qoran mid yahay hanti midna uu yahay dalabaad hantidu lacagta ku soo gasho waxaad gelisaa hanti say lacag kugu sameeyso tusaale ahaan oo kale mashaariic lacagta geli haye waxaad gelisaa kale dhismaka ay ka soo gasho kiro sax waxaad gelisaa saami amba shirkado oo yani waxaad stocks geli taasi waxay ku sahlaysaa inaad waqti fudud hanti ku yeelato lacagtaada lacag bay ku dhalaysaa laakiin waxaad iska ilaalinaysaa oo khatar ku ah oo lacagtaada bixinaya waxa weeye waa liabilities ama waa dalabaadka iibsashada guriyaha oo gurigeeda iska iibsato baabuur inaad iska iibsato sanad walba inaad mobilkaaga bedesho inaad dalxiis iska tagto lacagtaada mushaharkaaga amba hantida ku soo gasha isku day inaad arrimaha ma gelinaysid waxaad gelinaysaa waa maxay waa arrimahan oo ah mashruucaad dhisme ay ka soo gasho saami amba shirkado lacagtaada halkan gelisay lacagtaada lacag ugu dhasho marka labada mafhuum aan doonayna fahantaan waxa weeye ha ku koobnaan tan hoose ee ah maxay waa dakhli iyo kharash labadaas ha ku koobnaan ee isku day inaad fikirkaaga u wareejiso qaybtan ah inaad hantina samayso iskana ilaaliso dalabaadka yani guri dhiso iishe gaari iibso mobil bedel dalxiis ina arrimahana dib u dhigto oo arrimahaaga geliso mashaariicda iyo dhismaha kiradu ay ka soo galisay saamiga qodobka ina fahanteen rajaynaya qodobka kale aan rabo doon inaad fahantaan waxa weeye mind your own business yani mashruucaaga ku gaarka ah ha kuugu jiro balaanka
ha ku talagali noloshaada inay ay mihnadaadu taajir ka dhigto salaano kale halkan hadal baa ku qoran hadalkaas wuxuu oranayaa xirfadaadu waxay ka bixisaa biilalka yani xirfadaada iyo mihnadaadu waxay ku koobantu waa biilalkaaga laakiin mashruuca aad leedahay oo gaar ku ah ayaa ka dhiga hantiile marka horta noloshaada waxaad ka qayb dhigtaa oo ka dhigtaa noloshaada qayb kamida inaad yeelato mashruuc adiga ku gaara ha ku koobnaanun inaad xirfadaada ay ka dhigi doonto mid lacag leh iyo in aad shaqaalun ahaato ogow intaad shaqeynayso noloshaada aad qof shaqaale u tahay hantina ma yeelanaysid taajirna noqon maysid laakiin waxa taajir lagu noqdaa waa mashruuc adiga ku gaar ah inta niyada ku hay amaahdu waxa weeye qodobkan waxa weeye waa qodobka ah ka dheerow amaha hadaan mid banki ku siiyo oo guri si amaahato oo gaar si amaahato mid dadkuba ay ku amaahayaan ahaato laakiin amaahdu waa waxyaabaha qofka ka hor istaaga inuu hanti yeesho waayo lacagtani waa lacag kugu maqan meeshay ka soo noqonaysaana waa jeebkaaga marka intii ay wax kale ku tari lahayd waxaad sii cunaysaa jeebkaagi marka horta amaahda waxaad u fahantaa nin xoogiisii soo cunaya inaad tahay marka amaahdu waa qodob ay tahay inaad aad iyo aad uga dheeraato amaahda aad iyo intaad uga dheeraan karayso amaahda ka dheero ama tambangiga ahaato ama tu qofku amaahinayaba ahaato qodobkan waxa weeye yaad kala tashanaysaa mashruucaaga had iyo jeer sida caadada ah dadkeen waxay kala tashadaan saaxiibadood qof suuqa ku jira yani qof aan mawduucan aanu kusaynba waa arinta sahasha in dad badan oo business bilaaba ay markiiba kacaan haddaad hadaba mashruucaaga cid kala tashanayso waxaad kala tashataa dadka aqoonta u leh suuqa iyo dhaqaalaha waxaad u tagaysaa expert waa dadka aqoonta u leh maaha lacagtaada wax saaxiibka uu go'aaminayo maaha wax nin bas aad ku aragtay go'aaminayana maaha hadday doonayso inaad mashruuc dhaqaale aad ka samaysanayso aad samayso yaad u tagaysaa waxaad abaaraysaa dadka aqoonta u leh maaha wax saaxiibka ku go'aaminayo maaha wax waalidka ku go'aaminayo maaha wax suuq iyo dhalinyartu ku go'aaminaysaan arrintaas waa arrinta keentay in dad badani ay ku furgaroobaan suuqa